الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين كورسكينا halkan ka bilaabmaya maadaama aynu ka hadli doono more about router oo inaan cilmigeena waxaan ku hadli doonaa badankiisu noqon doona routerka iyo shaqadiisa iyo sida routing protocolska loo sameeyo oo uu kooraska gabigiisu la xiriiro routing oo inaan haba yaraatee wax switch soo hadal qaadaynin intaynu kooraska ku jirno aan ka bilowno muxuu yahay routerku router waxa lagu macneyn karaa inuu yahay router is a layer 3 device todobadii layer ee network layerska loo yaqaanay layerka saddexaad ayuu dhacaa micnaheeduna waxa weeyaan layer 3 shaqadiisu waxay ahayd inuu packet forward sameyn jiray inuu packetka isa sii dhaafin jiray marka waxaan leenahay meaning that taa macnaheedu waxa weeyaan inuu routerku yahay it make forward decision buu isagu sameeyaa forward decision go'aan uu qaatay ayuu ku forward gareeyaa maxay xogta soo gaadha packetka soo gaadha ayuu ku forward gareeyaa based on logical network address isagoo ku base gareynaya IP address logical address iyo IP address waa isku mid isagoo IP routing isticmaalaya ama IP address isticmaalaya routerku sidiisa wuxuu create gareeyaa internetwork ama operability-ga waa waxa sameeya laba shay inay wada shaqeeyaan laba network oo kala duwan ayuu isku xidhaa router provide connections to wide area network marka local area network joogno switch baa isku xidha wide area network marka joognana router baa isku xidha services via serial interface and one connections iyo isagoo isticmaalaya haddaba routerkeenu sidan oo kale u noqon doona for example routerkeenan كان سيسكا معها لكن just for example router كأنني port management portيا ترى أو لقى معمول واحد الله يقانا console إن سيسكا console كان برانينا أمريكا سيسكا console محوية هاي بورتيجا سي console كو أيام جلينينا حريق الله يقانا serial أما series أما محله يقانا RS232 serial cable كسلا جلينيا cable كserial cable كنا وانوعان mar waxaad helaysaa isagoo sidan dhinacna RJ45 dhinacna u samaysan maxaa loo yaqaanaa kan VGA waxa weeyaan ama DP9 labadaba la yiraahdaa in isagoo sidan u samaysan iyo qayb sidan u samaysan ka bacdina qaybtan mailka iyo qaybtan vmailka ayaa la isku connect gareynaya isku maarid gareynaya dhinacani waxay ku galaysaa marka routerka dhinacana computerka ku galaysa marka serial cable baa labadooda la isku yiraahdo sometimes waxay siska sameeysaa inta dambe ama aan iraahdo China ba u badan cable kan oo labada dhinacba dhinacna USB dhinacna RJ45 kaasa la yiraahdo markaasi console cable la'aantii waxba ma qabanaysid markuu device-ku cusub yahay waa inaad console cable haysataa haddaba maxaa ku suura gelinaya computerkaaga xarigii physical connection ki wada shay routerkiina waad haysataa computerkiina waad haysataa software jira loo yaqaano markaasi terminal emulators loo yaqaano marka terminal emulation programs maxay yihiin softwareskaasi waxa laga helaa inta badan free ba lagu helaa waxa kamida MobaX waa my favorite one waa kanaalkan yaala oo templates aad u fara badan madweygadan manage karayo dhan baa ku jira oo ay addressyadii waxay oo dhan ba templateska ay ku jira isaga furi maayo buti bay jira isagana oo intaynu course-kan ku dhiganayno aynu arki doono marar kala duwan security CRT baa isna ku jira oo mostly aniga labadan ayaa favorite-kayga labadaas aniga favorite-kayga labadan aad u isticmaalaa buti isagu waa default buu soo dagaa tetra isna jira tera baan jeedaa ayaa isna jira oo isna aad useful ah waxaa jira hyper terminal baa jira OSX terminal baa jira anigu mostly waxaan ku dhisanahay ama aan ku xidhanahay mostly MobaX terminal iyo PuTTY iyo security RT saddexdaasaan aad u isticmaalaa hadda intaynu course ka dhiganayno badankeeda waxaan isticmaali doonaa PuTTY